badiba kuwa isjecel hadiyada ay isdhaafsadaan meelo qurux badanna way u dalxiis tagaan hase haatee intii uu jiray xidhiidhkeennu meel loo dalxiis tago ma aynan aadin wax hadiyad ahna isma aynan dhaafsiisan talow ma bakhaylnimo dhankeenna abaa mise jacaylkeenna ayaanan waxba ka jirin labadan midna ma aha balse hal qarsooni ayaa jirta hadiyad isdhaafsigu iyo u dalxiis tegidda meelaha qurxoon jacaylku waa ay nusqaamiyaan sidee isug horta ugu horrayn kama hadlayo labada guriga wada leh ama isu mehersan waxaan ka hadlayaa labada haasaaba wadaagga ah ee aan weli isla guurgelin marka si joogtaa isbuuc ama bil laysu dalxiisgeeyo hadiyadana laysu dhaafsado waxaa dhashaa dareen karaahid ah labada qof kuu doona ha ahaadee waxaa ku abuurmaa shaki ah in hadiyadahan awgood ay u wada joogaan oo aanay wax kale u wada socon macnaha wiilka ama gabadha ayaa aaminaya in sababta jeceylkooduba ay tahay hadiyadahan haddii hal mar aysan isa siin hadiyadihii ay la qabsadeen shaki kale ayaa imaanaya oo gabadha ama wiilka ayaa aaminaya in ay kala furfurasho iyo kala tegid soo socoto si kale in burburka xidhiidhkoodu soo socdo taasi sababteeduna ay tahay hadiyadihii iyo wixii la isla bartay oo la iska waayey qofka aad jeceshahay ha barin hadiyad siinta joogtada si aydan ugu kala tegin maalinta aad wax isla weydaan